sidee bay ku dhacday in dal leh kheyraad badan uu noqdo mid saboolnimo lagu tilmaamo? Soomaaliya imka 30 sannadood waxa lagu waday maxay capacity building ma awoodaane waa laydin dhisaya awoodina la dhisaya ma waa nasiib xumo mise waa shaqool si qorsheysan loo dhisay? waxay yidhaahdaan ummad kastoo 3 shay loo sameeyaa horumar ka dheer waa halkeeday nagaanaysaa. kusoo dhawo maanta waxaan si qoto dheer u falanqeynaynaa sababta dhabta ah ee dib u dhaca Soomaaliya ma aha keliya saboolnimo, waa sheeko ka weyn sheeko siyaasadeed, nidaam iyo laga yaabo shirqool qarsoon. weliba waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdaan miyaa la maagaya maya dowladaha waaweyne waxay u leeyihiin guruub dhaqaalayahanaa oo masalada ka fakara oo waddannada kale tala bixinta siiyaa sidii loo dumin lahaa. waa group dhisan maaha wax theory waa group dhisan waa kuwa ka warramayo kale convention of economic hitman ninkii qorayo kale oo ka mid ah gruubada tan bale waxaan idin sheegi karaa gruubada qaarkood in xataa rag Soomaaliyeed ku jira dhaqaalayahanna Soomaaliyeed inay ka mid yihiin. aan eegno xaqiiqda tirooyinka ma bay sheegaan. eeg farqiga u dhexeeya Soomaaliya, Kenya, Itoobiya muddo 20 sano ah. Itoobiya 2024 waxay qaadatay lacag dhan 10 bilyan, 2024 waxay qaadatay lacag dhan 149 bilyan. Kenya 2024 waxay qaadatay lacag dhan 16 bilyan, 2024 waxay qaadatay lacag dhan 120 milyan. Soomaaliya 2024 waxay qaadatay 2.5 bilyan, 2024 Soomaaliya waxay qaadatay 11 bilyan. Itoobiya waxay diiradda saartay hal aragti warshado iyo tamar. mashruuca Grand Ethiopian Dam wuxuu astaan u yahay qorshe qaran. Kenya waxay noqotay xarun dhaqaale iyo tiknoolaji. afka M-Pesa ayaa bedelay dhaqaalaha shacabka. Soomaaliya anaka weli waxaan ku mashquulsanahay dood aan dhammaan. markaynu taas soo dhaafno waxaa garan kartaan waxay ku sameeyeen Asia iyo numuri 7 dowladii lalahaa waa Tigeriska ama shabeellada 7 ah hal dawladaba tala bixintoodii diiday iyadoo qura badbaaday. intii taladoodii aqbashay waa la waayay. Malaysia qura diiday tala bixintii Western ku bixinayay way guuleysatay mushkiladda way ka baxday. 6dii qaatayna way jabeen. shayga labaad ay sameeyaan ee subversion ka ahi waxay yidhahdaan waa zaczactu istiqraar destabilization in waddanku crisisku uu ka jiro had iyo goor inaanu degin. dadka badh baa u haysto moodaya dowladaha waaweyne inaynu degno inay rabaan in dagaalku inaga dhammaado inay rabaan in caynkan ma jirto. waxay u socdaan inaad weligaa degin. innaga waddankeenna waxaa lagu maamulaa maxay albandi 7 bandiga 7 ee United Nationska xeerkiisa. bandu 7 macnihiisu waa maxay? waa qofku isma maamuli karee hal la maamulo. qofku isma maamuli karee ilmaha yara carruurta aabihii markuu dhinto maxaa la yidhaahdaa xoolihiisa ma maamulan karee wuxuu u baahan yahay maxay wasiy cid maamusha oo meel gaadhsiisa. bandiga kani wuxuu qorayaa waa intaa askar ma yeelan karaan way istilayaane qoryo ayaan laga iibinin. dowladnimada xeebtooda ma ilaashan karaane cid kale ha u ilaaliso. wax kastaa soo qabo waxaa ma samayn kartid ilaa iyo ogolaado mooyaane adiga ciidan kale in lagu duldhigo wax kale. waxani ma aha jacayl laguu qabo ee waa destabilization. waa inaad ku jirto inaad weligaa soo kicin. Soomaaliya meelaha yare nabaduu ka jira waa meelaha laga yaabo inaan iyaga askartoodu imanin iyo inta iyaga la socota aanay ku badnayn kolay kama madhnee ayaa inta nabadu ka jirto.
su-aasha ugu weyn ma qalad baa mise waa nidaam si ula kac ah loo dhisay? nidaamka federaalka ma midaynayaa mise oo kala fogeynayaa? go-aan kasta wuxuu maraa muran, dib u dhac iyo isqabqabsi. tani ma aha horumar, waa wareeg aan dhammaad lahayn oo ila meereysaa. saddexda shay waa maxay? waxay dhahdaan ixbaad, demoralization, in dadka lagu qanciyo inaanay hore u socon karaynin, in lagu yidhaahdo adiga imkaaniyaadkaaga iyo awooddaada iyo tamartaadu ma saamaxayso waxaasi. adigu waxaad u baahantahay bay ku leeyihin capacity building. soomaaliya imka 30 sannadood waxaa lagu waday maxay? capacity building. waa ma awoodaane, waa laydin dhibaatadu ma aha tirooyinka, waa nolosha dadka, shaqola'aanta, saboolnimada iyo rajabeelka. that's why caalamulislaami maanta war badan looga akhrinayo ah feminism group iyo gender iyo kuwa sagas ka warramaya iyo waxaan sheekhu hadda sheegaya iyo waxaan loo wadoo dhammi waa ifsaadu akhlaaqi nnaasu. waa jirtaa bini'aadamku ma aqbalo bifitratihi in la yidhaahdo xuma samee ma aqbalo, laakiin xumaa shaadh baa la huuya. aadam ibliis kuma odhannin geedkan cunaa dambaabtide, muxuu ku yidhi? shajarat alkhuldi wa mulkin laa yablaa baan ku tusaya. geed markaad cunto shajarat alkhuldiya, adiga waxaa lagu odhanayaa waa xuquuqda dumarka iyo waa xuquuqda carruurta iyo wax xuquuqoo la sheegaya ma jiro, xaggaasay ku dulman yihin. xuquuqi meeshan ma taallo, ee waxa weeyaan waa fasaadinta dumarka iyo fasaadinta carruurta iyo fasaadinta ummadda ayaa asala. laakiin shaadhka sare ee la huwinayaa wuxuu yahay maxay? eray aanad ka didaynin. laakiin weli rajo waa jirtaa. dalalka maanta horumaray ma ahayn kuwa ka fiican anaga, waxay lahaayeen hal shay: nidaam shaqeeya. haddii la helo hoggaan, midnimo iyo qorshe qaran, Soomaaliya way ka kici kartaa dhibaatada. su-aashu waa adiga ma aqbali doontaa xaqiiqadan mise waa bedeli doontaa? sabskraib saar, fikirkaaga ka dhiibo daawada. maxaa xal ah?